haddana aan galno markay tahay mediumka qaacido leeyahay oo waxa loo qoray saasa loo qoray mediumkaagi because fiiri kana mean waaye kana medium waaye kana waa mode kala faham calaamadaha markuu toosan yahay mean waaye markuu saa yahay medium waaye markuu koofi yahay mode waaye qaabka kama kaas medium waaye waxaan ku heli karnaa waxaan soo baranay mediumka oo ah an group ah hadda waxaan ku jirnaa mediumka oo group ah qaacido leeyahay markaan fiirino waxaan ku heli karnaa L plus H divided by F into CF into N divided by 2 minus CF marka formulkaas ayaa isticmaali doonaa markaan joogno mediumka markuu yahay groupka waxayna fahmnaa again xaraf kasta meesha ku yaal maxay micno taagayahay qiimo leeyahay waa inaan naqaanaa L waxa laga wado H waxa laga wado F waxa laga wado N waxa laga wado iyo CF okay marka mediumkeen raadin waxa u baahan wax loo yaqaan reference line waa inaan istaaga fiir hal line ama line-kan hal line ku jiraan dhammaan hal line ku jiraan kan ikan hadduu line-kaas kaa wareero waxba kaa wareerayo marka line-kaasna waxaan ku tegi karnaa only the whole concept oo maxay waxaan ku dhex jirnaa medium waxaan raadinaynaa medium waxaan haysanaa xog oo ah xog nidaamsan oo aan bixinay group data markii medium aan rabo medium waxa la keenay mid waxa noqon maxay kala bar marka waa inaan istaagaa line ay ku jirto kala bar xogteeda kala barkeeda ay ku jiraan xogta raadinayo ani ma qaystaa 125 haystaa labaan ka qaybiyo wax soo bixi doono ayaan ka baari doona maxay CF-teeda 125 loo qaybiyay labo medium waxay noqday 62.5 62.5 ayaan waxaan ka baari doonaa my CF-teeda meeshuu galo ayaan galaa 62.5 intee ka baari doona this one كم يا ما قايسة لحظة يا لبو دبيعشان كم يا مايا انتو قلي ما دام 62.5 وكان كسر انتو قلي لينكاس او قلي waxay noqon doonaa my reference line yes my reference line okay fine leenkaas markaa fiirno always kan waxaan naqaanaa lower limits upper limit lower because markaas kana yar kana weyn inta waxaan naqaanaa lower limit kan waxaan naqaanaa upper limit el wuxuu taagan tahay lower limits that's the point el wuxuu taagan tahay lower limit kan aan imaan karo maxay kan waa lower limit laakiin kaan isticmaal doonaa line-ka xariiqinay kan ku jiro yaa maanta igu jiro 15 yes marka mediumkii maxay wuxuu noqday L-kayga waa 15 see ku soo helay line-ka xariiqday waa okay H waxaa laga wadaa height waxaa distance-ga waa 5 iyo 10 waxaa u dhaxay 5 kan waxaa u dhaxay 5 marka distance-ga height-kan waa 5 divided by frequency F frequency waa marka frequency aan rabo kan frequency waa kay qaadan doona line-kaas ka ku jiro line-ka ku jiro 35 into n ma qaasta n waa tirada guud ma qaasta 125 waxaan qaybin doonaa 2 oo 2 laga jaray marka CF taasi waxa la wadaa cumulative frequency waa talo kama qaadan doona waa column-kan kama qaadan doona ma taqaanid waxaa qaadan doona marka haddii warkay dhageyso haddii maadaama horta aan u baahannahay medium aan u baahannahay reference line istaagi doono line-ka istaagayno see ku fahmnay xogtaan haysanay ayaa labo qaybinay meeqa haysanay 125 labo qayb meeqa 62.5 intee ka baarnay CF-10 kam yaa may line-kan oo soo dhex galay haddii 62.5 ka aan raadinayay qiimaha raadinay hadduu qiimaha inta ku jiro lahaa
أساقر لها لكن ما يستم إن محاسة 62.5 مركان باري أنت ما دام أنت كوايي أنت قفصدي متكان قفص كان كسر أي علاقاتها محي صدن أي كسر صدن عقد كونسبت يعني كعليو سي اف تاس فليكسبل وان يعني كو حرن تاي قيمها لينك استاغ دون قيمه كباراي وحوها 125 لو قيبي لabo way labo loo qeybiye waxaan rabaa mid point mid maxaa kala bar maxaa kala barnay divide 2 مثلا waxaasna $100 no kala bar ma qays $100 soo keentay boqolkii labo qeybi mid waa kala bar waa maadaama aan rabno inaan aadno mediumka uu kala bar yahay xogtii waxaan boqol sanaasna 125 loo qeybi labo waa 62.5 hadda inta ka heli lahaa asaa qori lahaa laakiin ma ka waaya maya waa soo booday intoo galay maadaama kan uu ku jira kan soo booday ka soo booday kulaawada soddonkaas kulaawo soddonka xaq qoro then mediumka maxay wuxuu leekan doonaa 15 plus intaan soo nidaami waa 5 divided by 35 into intaan waa 62.5 minus 30 yes medium kan maxay wuxuu leekan doonaa 15 plus 5 divided by 35 frequency is 2.5 laga jaray 30 waa 32.8 waa 32.8 okay x medium equal to 15 plus intan waxaa leedahay 5 oo loo qeybiyey 35 waxaa soo baxay 0.142857 intaas inta qaybtaan waay waxaa leedahay ku dhufo kamarka ku dhufo 32.8 waxay noqotay waxaa leedahay 5 loo qeybiyey 35 waa 0.14 lagu dhuftay 32.5 yes waxaa soo baxay 4.62 yes markaan sii wadno equal to waxaa leedahay 4.62 plus 15 muxuu keenay 19.64 you see marxiim welcome mar kale cashirkeenis noo socday waxaan ka soo hadalnay daa xasuustaan aan ku dhex jirnay overall central tendency-ga oo aan kaga hadlaynay meanka mediumka modeka waxaan soo baranay markay tahay ungroupka waxaan ku jirna markay tahay groupkaasna waxaan soo baranay meanka markuu group yahay iyo mediumka waxaynu arag keliya inaan barno maanta waxaan naqaano modeka oo group ah laakiin principal waxaan ku heshiinay meanka iyo mediumka iyo modeka maadaama hal xog ay tahay inay keento hal qiimo xooga dholow waxaan filayaa inaan keennay meanka iyo mediumka 9 point xoogana keennay modekana waxaan rabnaa wax dhow loo keeno laakiin hal mid ma la aqbali karo adigoo xogtan kaliya haysto inaad meankiisa taqriiban 9 keento mediumkiisa 30 keento modeka 40 keentaas sax maaha qiimaha ay keeni doonaan meanka iyo mediumka iyo modeka waxaan rabnaa inay noqdaan يعني almost qiimo isku dhawaan kala badnayn qiimo aad u kala duwan ka tahay waxbaa jira cilad baa jiraysa soo marka bal aan fiirin marka modeka markuu yahay groupka soo xisaabi karnaa okay modeka qaaciduu leeyahay horta markuu aan groupka modka waxaan jirnay haddii lagu siiyo tirooyin kala duwan tusaale ahaan suppose haysanaa 8 2 8 4 6 4 7 11 4 in this case haddii lagu diro modekaagi maxay waa very simple waay waxaan dhihi karnaa waa the most frequent numberka soo laabashada badnaa waay in this case modekaagi 4 waay because 4 ayaa soo laabtay 1 2 3 jeer marka modeka ama loo soo gaabiyo calaamadan loo gaabiyo maxay modekaagi waa 4 waay markaa joogno maxay data marka because waxaa joognaa group ayaa joogtaa datadaadi wax soo laabtay maxay waa 4 waay maanta waxaan rabnaa barno markay tahay xogtaadii group ee noocan tahay
because xogtan asalkeeda markaan soo qoraynay saan ahayd xog waxayd oo soo yaacsan kadib step 1 sameynay step 2 sameynay 3 sameynay xogtii waxaan ka dhignay xog oo maxay qaab groupa marka waxaan rabnaa inaan ka raadin maxay waxa uu naqaanay moodkeena so moodkaas markuu yahay groupka qaacidooda marka sila soo qaacidiisa moodka markuu yahay groupka horta calaamadaha moodka waa san L plus H into F1 minus F2 divided by 2 FM minus F1 minus F2. This is F1 y. Okay. Kan marka waa formula aan ku heli karno maxay markaan rabno inaan soo saarno qaacidada aan isticmaal rabno moodka markuu yahay group. Waxaan fahmnaa again 1 by 1 muxuu yahay L calaamadan aan saxo kan waxaa ka wadnaa waa x ay saaran tahay cap yes okay marka waxaan rabnaa inaan fahmno L-ka muxuu yahay H muxuu yahay F1 muxuu yahay F2 maxay tahay iyo 2FM minus F1 minus F2 1 by 1 okay horta general concept waxa weeyaan waxaan u soconaa inaan soo saarno waxa u magacdarnay moodkana principally wuxuu ku tacalluqaa frequency-ga moodka ku tacalluqo waxaa isweydiinayaa horta yani L-kan waxaa laga wadaa lower limit L laga wadaa markaan kula xogta kala qaybta waxaa u naqaanaa lower limit kan upper limit waa because markas qiimahaas kana sareeya kana weyn kana hooseeya marka L-ka marka waa lower limit marka L-ka waxaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 todobada qiime meesha ku yaal waxay hal qiime kaliya baa qaadan karnaa ka badan ma qaadan karnaa laakiin su'aal waaye intaanoo qiimahee ku habboon inaan qaato maxay lower limit-kayga marka inaan fahmnaa intaasoo qiimo kee qaadan doona maanta si loo saaro maxay moodkaaga okay number 2 h-tan waxaa ka wadnaa height waxaa distance u dhexeeyo upper limit-kaaga maxay iyo lower-kaagii kaniga maxaa u dhexeeya 5 maxaa u dhexeeya kuwan 5 marka height-kan distance-gan u dhexeeyso labada qiimo lower-kii upper-kaaga maxay waa 5 marka h-kaagii because distance waa 5 waa 5 waa 5 waa 5 waa 5 waa 5 h-ka marka waa 5 waa haysanaa waxaan rabnaa markaa inaan fahmno again F1 F2 FM F1 waa kana F2 FM F1 again F2 again 2 is 2 waxaan rabnaa inaan fahmno maxay FM maxaa laga wadaa F1 muxuu yahay F2 muxuu yahay by advance FM waxaa ka wadnaa maximum frequency FM waxaa ka wadnaa maximum frequency ugu ballaaran ugu weyn ayuu noqon doona FM okay now marka waxaan rabnaa hal line ayay ku because frequency-gana kan frequency waa frequency waa frequency waa frequency waa frequency waa frequency intaa marka ka F1 siin doonaa ka F2 siin doonaa inaan naqaan qasab waa okay so markaan rabno inaan soo saaro moodka markuu yahay group waxaa u baahanta waxaan naqaano reference line الخط المرجعي على الرجل إن هاللاين يكجران كل لاين كاس مكان علامة صحيح وعكجرو F1 كاجي F2 كاجي FM كاجي lower limit كاجي height كاجي سمرك لاين كايستادو تلو لاين كاميا مسوالين كام واي مسوالين كام واي متقان لكن وح بيزقة وحنكجرنا وحنقانو مود وحنقانا waa the most frequent number marka moo shaqeynayo reference line-kayga waxaan ka baari doonaa frequency ugu weyn way kama ka fiirno waa ka marka kan waa soma photo marka line-kaas xariiqan doonaa this my reference line-kaas marka xariiqdo waxa ku jiro dhamaana ku jiro kan frequency ugu weyn waxaa dhihi karnaa fartaan bedelo kan waxaa dhihi karnaa FM waa maximum frequency FM waay soo ma markas FM ka calaamaysto kan ka sareeyo F1 waay by formula kan ka hooseeyana F2 waay by formula FM ka waa maximum frequency waay waxaa ka sareeya always F1 waxaa ka hooseeya F2 kadib waxaa inoo haray maxay
كمركا فيرني lower limit upper limit L كاج أكمرك this ما L لينك أو كتيرو this L كي واي F1 هستا F2 هستا F ما هستا معكوسو هاري معكوسو H كمرك H كحان دهني height كاج واي distance كاج واي always 5 H تدنا 5 واي because L واي هسنا F1 هسنا F2 هسنا F ما هسنا L H واي هسنا كوبا الباش هذا صحيح كان حي مود كاجي حي وحنا كان دونا المعصيشي لباتن maxaa ku dari doona maxaa ku dari doonaa H-ta waxaa haysanaa 5 yes into F1 waxaa haysanaa 35 F2 waxaan haysanaa 10 loo qaybiyey 2 FM waxaa haysanaa 40 minus F1 waxaa haysanaa 35 minus F2 waxaa haysanaa 10 mod equal to mod waxaan haysanaa 20 lagu daray kuwaas kala gooy meeqa waxaa haysanaa waa 5 into 25 oo loo qaybiyey hoos waa 80 oo laga jaray kanika 45 okay then mod equal to 20 lagu 5 ku dhufo 25 laba wata ku dhufo 10 12 let me check asku hubiyo 25 times 5 waa sax oo loo qaybiyey marka uu qaybiska marka waa inta bas inta soo gaarsiin waa inta kaliya waa oo loo qaybiyey waxaan u qaybin doonaa soddon laga jaray sorry 80 yes 80 oo laga jaray 45 waa 35 sii socodsiin marka xaggaas imaad waxaa leedahay mod equal to 20 oo lagu daray 125 loo qaybiyey 35 waa 3.57 modkaaga wuxuu leekaan maxay plus 20 modkaaga wuxuu leekaan doonaa 23.57 soo koob mod equal to 24 calaamadan modka wuxuu leekaaday 24 yeah this my mod so marka u baahnaa sameyn waxayna ka hadalno waxa uu naqaano modkeena waxaan u cuskanay inay tahay the most frequent number marka modkeena wuxuu noqday 24 xagga waxaan kaga baxnay meanka mediumka modka markay tahay group marka insha Allah waxaa inoo haray chapter 3ga qaybta u naqaan dispersionka hadda waxaan ka baxnay central tendency-ga oo waxaan ka baxnay meanka mediumka modka markay tahay groupka iyo ungroup waxaa inoo haray inaan ka baxno qaybtii labaad ee ugu dambeysay chapter 3ga aan ku baran doono waxa u naqaan dispersionka waa variance-ga standard deviation-ka mean deviation-ka interquartile-ka coefficient of variation-ka ayagoo group and group insha Allah masantiin thank you so much